abwaan yuusuf shaacir oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ayaa ku baaqay inaan la siyaasadayn aaska Allah u naxariistay Hadraawi oo maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa. abwaan yuusuf shaacir waxa uu ka sheekayay aasas hore oo kaga qayb galay deegaano badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida. waxaan ku talin lahaa aaskiisa in Soomaalida intii soo gaari karaysa ka soo qayb gasho ama geeska joogta ama meel kale joogta. waxa kale aan ku talin lahaa inaan la siyaasadaynin aaskiisa cidii iman karta loo furo. waxaan xasuustaa ilaahay u naxariistay dhoodaan jigjigaan kaga qayb galay, sangub jigjigaan kaga qayb galay, xasan sheekh muumin oo qurbaha laga keenay ilaahay dhamaantood baa u naxariistay booramaanu kaga qayb galay. dawladda Jabuutina waxay soo raacisay madaxweynuhu wuxuu soo raaciyay la taliyihiisa xaashi buu soo raaciyay xasan sheekh muumin. marka dadka noocaas ah ee bulshada oo dhan u dhaxeeya in aaskooda la maamuuso la isugu yimaado loo duceeyo waa fiican tahay. qodobkaas isagana waa ku talin lahaa. dhinaca kale abwaan yuusuf shaacir waxa uu sifeeyay shakhsiyadda Allah u naxariistay abwaan Hadraawi. mar walba nin bulshada nolosheeda ka qayb qaata ayuu maxamed ibraahim ahaa. marna ma ahayn nin nolol shakhsi ah maxamed ku magacaaban. maxamed noloshiisu nolosha bulshada yahay. ninkaasi laba dhacdo cajiiba buu lahaa, laba qodob oo cajiiba. mid wuxuu lahaa shakhsiyad tayadeedu u sarreyso. aan oran karo bulshadan maanta nool Hadraawi bulshadiisi ma yahay. bulshadan maanta nool iyo Hadraawi isku bulsho ma yahay. marka horeba Hadraawi ilaahay u naxariistay anigu waxaan aaminsanahay inuu qariib ku ahaa noloshan maanta qofka runta sheega waa ku qariib, qofka ballanka ilaaliya waa ku qariib, qofka khiyaamada aan aqoon waa qariib noloshan maanta jirta, qofka daacadda ah waa qariib, qofka ilaahay iyo aakhira iyo ku xidhan waa qariib. intaa iyo in ka badan oo kale ayuu ahaa. qodobka labaad ee muhiimka ah oo lahaana wuxuu ahaa xikam baa ilaahay siiyay, sugaan tayo leh. Umar Saadiq, Telefishinka Universal, Hargeysa.